waxaan rabaa inaan kula wadaago xogihii ugu dambeeyay ee ku saabsan xilka qaadista dhawaan lagu sameyn doono agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. sidoo kale waa kuma shakhsiga la doonayay waqti xaadirkan in lagu bedelo Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. waxaan kula wadaagi doonaa shakhsiga sida weyn waqti xaadirkan ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee la filayo in bedel uu noqdo Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa intii uu joogay agaasima Mustafa waxyaabihii uu qabsoomay iyo sidoo kale waxyaabaha uu ka gaabiyay ee waqti xaadirkan sida weyn loogu dhaliilayo. sidoo kale shirka golaha wasiirada ee berito oo khamiis dhacaya ayaana la filayaa in isbedelkaasi uu qayb ka noqdo dhammaanba isbedelada lagu sameeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada oo la filayo in isku shaandhayn lagu sameeyo. laakiin wax ugu weyn ee aad loo hadalay ayaa waxay tahay in gebi ahaanba uu xilkiisa weyn doono agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. warbixintaasi oo kooban ayaan faahfaahin kaaga hayaa, balse marka hore soo dhawaada laasar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada mahadsanideen. waa hagaag aynu ku bilowno. sidaan xogaa ku helayno golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa fadhigooda berito oo khamiis waxaa la filayaa in gebi ahaanba ay xilka kaga qaadaan agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow kahor inta aan loo magacaabin xilkan waxa uu ahaa siyaasi bannaan jooga, waxa uu sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo qaybahooda kala duwan ku soo jiray 20 sano ee la soo dhaafay. Mustafa kahor inta aan loo magacaabin agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya waxa uu ahaa nin mucaarada sidoo kalena bannaanka u taagan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa. maalmo kahor inta aan la magacaabinna waxa uu Mustafa madaxweynaha Soomaaliya si weyn ugu dhaleeceynayay qaabka uu dalka u maamulayo, isagoo oo madaxweynaha ku sheegay inuu yahay dictator taladii dalka shafka ku qaatay. laakiin maalmo kadib Mustafa si shoog ayaa loogu magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. markan wararka soo ifbaxaya waxay sheegayaan in dhawaan isbedel lagu sameyn doono si gaar ah maalinta berito ah oo gebi ahaanba xilka laga qaadi doono Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, waxaana lagu bedeli doonaa shakhsi si weyn ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waana gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ciise Maxamuud Guure. ciise waxa uu ka mid yahay xubnaha dhalinyarada ah ee firfircoon qaybna ka ah xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee JSB ama xisbiga cadaaladda iyo wadajirka. sidoo kale ciise waxa uu horay u soo noqday gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga UPD ee markii dambe laga dhigay ama loo bedelay xisbiga waqti xaadirkan madaxweyne Xasan uu hogaamiyo ee loo yaqaan JSB. sidoo kale ciise Guure hadda waa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir waana gacanta koobaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale ciise iyo Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waa isku dhari marka la joogo qoondada siyaasadda Soomaaliya. waxaa la leeyahay ciise waa nin firfircoon waqti xaadirkan madaxweynuhu waxa uu arkaa inuu ka soo bixi karo xilkan agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, maadaama hay'addan muhiimadeeda marba marka ka dambaysa ay bannaanka imaanayso, waxaana waqti xaadirkan hay'adda ay qaadaysaa tallaabooyin kala duwan. sidoo kale ciise Guure hore waxa uu soo noqday gudoomiyaasha Daynile iyo Holwadaag, waana waqti xaadirkan gudoomiyaha maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir, iyadoo la aaminsan yahay in uu yahay maskaxda ka dambaysa dib u habeynta maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir waqti xaadirkan uu ku sameynayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Xuseen Mungab. sidoo kale Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow wax ku dhow ama ku dhawaad sanad ayuu joogaa xilka agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. waxyaabo fara badan ayaa u qabsoomay, waxaana baasaboorka Soomaaliya uu ku soo kordhiyay ayaa la leeyahay waxyaabo badan oo muhiim ah. sidoo kale intii uu joogay xilka agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Mustafa waxa uu soo kordhiyay nidaamka e-visa, waxa uu xoojiyay baasaboorka Soomaaliyeed. sidoo kale safarro kala duwan ayuu ku aaday dalal ku yaala qaaradda Yurub, halkaasi oo heshiisyo dhanka socdaalka ah uu kula soo galay dhigigiisa. sidoo kale Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waxaa lagu ammaanayaa haatanba inuu ku guda jiray sidii uu horumarin lahaa baasaboorka Soomaaliyeed. sidoo kale dhowaan waxa uu soo saari rabay sharciyo kala duwan, laakiin waxaa la leeyahay ugu dambeyn Mustafa seefta ayaa qaaday oo waxaa lagu bedelayaa gacanta midig ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waana gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir Ciise Maxamuud Guure. Mustafa waxyaabo fara badan
ayaa lagu eedeynaya oo qayb ka tahay musuq maasuq iyo sidoo kale in uusan ku wanaagsaneyn dhanka go'aan qaadashada iyo marka la joogo gudaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo inta badan shaqaalaha hay-adda ka shaqeeya Mustafa waxay u arkaan nin aan tayo badan lahayn sidoo kalena go'aan qaadashada aad uga liita waxaana sidoo kale waxyaabaha lagu eedeynaya qayb ka ah in Mustafa inta badanba uu yahay nin u roon dhanka iyo sidoo kale dadka kore ama dadka waxyaabaha loo yaqaano fat catiska ama ganacsatada iyo waxyaabaha la midka ah iyo siyaasiyiinta taa cagsigeedana waxaa leeyahay gebi ahaanba Mustafa intii uu joogay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya uma rooneen dhalinyarada shaqaalaha iyo dadka la-eeniga ah wixii warar ka soo kordha xilka qaadista Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo maalinta berito la filayo isla halkan ayaad ka daawan doontaa waxaan nahay Ismaaciil Daarshin